weli waxaan bartanka ugu jirnaa daraasadeena shanta gees mawduuceedii shanaad ee miisaanka nolosha. waxaan maanta qaadanaynaa ama aan geli doonaa shaqada golaha ummadda Soomaaliyeed. waxaan soo qaadanay qaybihii ka horeeyay ee golaha ku saabsanaa sida tiradiisa guud, qaybihiisa iyo dhismihiisa. hadda waxaan isla soo gaarnay shaqada uu qabanayo. shaqada aan rabno inuu noo qabto aan u samaysanayno ayaa sidaan ah. shaqada golaha ummadda Soomaaliyeed waxay noqonaysaa tiirarkan shanta ayuu ku dhisnaan doonaa ama uu ku taagnaan doonaa. qodobka koowaad ama tiirka koowaad wuxuu noqonayaa xulista xubnaha golaha ummadda Soomaaliyeed. xulista xubnaha golaha ummadda Soomaaliyeed waa xubnihiisa. labo, xulista xubnaha guddiga ummadda Soomaaliyeed. wuxuu kaloo noo soo xuli doonaa guddiga ummadda Soomaaliyeed. wuxuu kaloo number 3 wuxuu kaloo noo soo xuli doonaa xulista xubnaha aqalka ummadda Soomaaliyeed. aqalka dadka aan geysanayna asagaa noo soo xulaya. 4, xulista xubnaha dowladda ummadda Soomaaliyeed. dowladda aan rabnana xubnaheeda asagaa noo soo xulaya. 5, xulista xubnaha hay-adda maamulka khayraadka ummadda Soomaaliyeed. maxaa la dhihi jiray xubnihii noogu shaqeyn lahana asagaa noo soo xulaya. warayaan idinkugu badinin, waxaan gelaynaa number kasta ama tiir kasta oo faahfaahsan aan gelaynaa in ay la socotiin idinka rabaa. daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa daraasadeena shanta gees mawduucii miisaanka nolosha qaybtiisii golaha ummadda Soomaaliyeed oo aan marayna qaybtii 4aad ee ah shaqada golaha ummadda Soomaaliyeed. tiradii waa soo sheegnay guud aan golaha uu noo noqon lahaa. qaybahan u kala saaranayna waa soo sheegnay. dhismihiisa waa soo marnay. shaqadii uu qabanayay markaan oo aad iyo aad u xiiso badan aan ku guda jirnaa. ila socda. 1, xulista xubnaha golaha shaqaduu qabanayo. xulista xubnaha aqalka. xulista xubnaha guddiga. xulista xubnaha dowladda. xulista xubnaha hay-adda maamulka khayraadka ummadda. shantan tiiruu lahaa waa soo marnay iyadoo kooban, ayagoo faahfaahsan oo kala baxbaxsan aan rabnaa inaan galno haddeer. qodobka koowaad haddaan ku hormarno ama tiirka koowaad ama ciwaanka koowaad ah xulista xubnaha golaha ummadda. 1, wuxuu soo xuli doonaa ugu horreyntiiba waaxda howlwadeennada. asagaa soo xuli doona, macnaha asagaa soo mari doona, soo saari doona. 2, waaxda diiwaangelinta. asaga ayaa noo soo saari doona. waaxda hubinta asagay ka soo bixi doonaan. waaxda shuruudaha asagay ka soo bixi doonaan. waxaan asaga soo marinba maba shaqaynayaanba. number 5, waaxda ogolaanshaha. maxaa la dhihi jiray ayagu soo macnaha ayagu soo mari doonaa ama ayagu ka soo bixi doonaa. qodobka kale xulista xubnaha aqalka. aqalka waa soo sheegnay, waa meesha ay noo yaalaan. waxaa waaye axadigeennii ummadnimo waxaan ku heshiinay meeshaan dhigan doono. waa dadka noo haynaya. marka dadka noo haynaya intay ka soo bixi doonaan waxaa soo xuli doona ama aqalkooda keeni doona golaha ummadda. golaha ummadda asagaa isa soo xulay, laakiinse haddeer wuxuu xuli rabaa ama uu xulaa hadduu ilaahay idmo shantan aqalka xubnaha aqalka asaa soo xuli doona. aqalkana shantan qaybood unbuu noqonayaa bis. horena waa kugu sheegay waxaad haysataa lagu xisaabtamaa. qodobka koowaad waaxda cilmiga diinta dadka yaqaana. culumta diiniga dadka ku takhasusay. cilmi diin nooc kasta uu yahay oon halka maqnayn dadka ku takhasusay meesha aan geyn doonno waaye. 2, waaxda culumta dalka aqoonta dadka u dadka yaqaano ama dalkeena ama dalalka adduunka
adiga culumta adduunyada dadka ku takhasusay dalalka meeshan geysan doono waa ilaa annaguna waa leenahay meeshaasan geysan doonaa sidii wax u qaban doonaan waa u tegi doonaa waaxda culumta dadka ku takhasusay meeshaan geysan doono waaye waaxda culumta dowladnimada iyo maamulka dadka ku takhasusay meeshaan geysan doono waaye waaxda culumaha afafka dadka ku takhasusay waa meesha aan geysan doono ka gudub maxaa la dhihi jiray xulista xubnaha guddiga ummadda waa kana xubnaha doorashada waa guddigan ka wada magtahay xubnaha guddiga doorashada ilaa mogtahay guddiga doorashada xubnuhu ka kooban yahay soomahan xubnahaas uu ka kooban yahay see loo soo xuli doonaa nin walba waxaa laga rabaa maxay tahay inuu yaqaano xulista guddiga xulista xubnaha guddiga doorashada xulista xubnaha guddiga farsamada xulista xubnaha guddiga la talinta xubnaha xulista guddiga dabagalka xubnaha xulista guddiga kormeerka xubnahan dhan dadka maxaa la dhihi jiray afraadda ama ashqaasta ku midaysan meesha ay ka soo bixi doonaan waa golaha waa ka gudbaynaa xulista xubnaha dowladda aan gudbaynaa wuxuu usoo xuli doonaa waaye wuxuu usoo xuli doonaa xulista maxaa la dhihi jiray musharaxiinta madaxweyne ilaan aqalkayaa timid baalka guddiga waxaa timid madaxweyneaad rabtaa waxaad timid maxaa la dhihi jiray golaha u timid markii hore waxaad ogolaasho iyo kaar iyo ruqsad aad ka soo qaadatay golahaad ka tirsaneed ya brofesor kaba soo qaada brofesoraad tahay ama aqoon-yahan ama siyaasiyaad tahayba meesha ugu fudud siyaasiyaad tahay siyaasi intuu ka tirsan yahay golaha aqoon-yahanaduu ka tirsan yahay golaha aqoon-yahanada waxaad ka haysataa ogolaasho in maxaa la dhihi jiray aad shaqo tegi kartid waa timid golihii dhisnaad u timid golihii dhexe waa kan waxaan ka hadlayna waa golihii dhexe kaas golaha waxa waaye waa u tegi doonaa iyadana macnaha iyadoo sharaxaadeeda aad uga fiicanta markaan golahaagii oo adiga aad ka dhalatay yaa jufo iyo degaan iska dhaaf iyo xisbi golihii aad ka dhalatay ee aqoon-yahanada ahaa ayaa waxay ku ogolaadeen inaad ku soo dirsadaan inaad madaxweyne noqoto ama adaa codsadaba waa soo baxday waxaa u timid golihii dhexe u timid golihii dhexe ama golihii sare midkaa rabtid golihii markaa u timid waxaa soo martay waaxdii oo maxaa la dhihi jiray oo diiwaangelinta soo martay waaxdii howlwadeennada soo martay waaxdii diiwaangelinta soo martay waaxdii waxaa soo martay hubinta waaxdii shuruudaha soo martay waaxdii ogolaashaha ama ruqsadda ama ansixinta waad ka soo gudubtay markaas musharaxa lagu aqoonsan yahay wixii kuu dhiman aad suganaysaa marka wixii kuu dhiman aad suganaysaa taasna aad iyo aad u xiiso badan tahay waa keeni doona ila soco maxaa la dhihi jiray xulista xubnaha dowladnimada waxaa waay xubnaha musharaxiinta madaxweyne xubnaha baarlamaanka xubnaha wasiirada xubnaha hay-adaha garsoorka xubnaha taliyaasha ciidamada intaan waxa waaye ninna maxaa la dhihi jiray meeshaanu soo maraa ninna waa la magacaabaa saasay u kala baxsan yihiin waa ka gudbaynaa xubnaha xulista xubnaha hay-adaha maamulka kheyraadka ummadda saanay noqon doontaa say noqon doontaa maxaa la dhihi jiray xulista wakaaladda xubnaha wakaaladda xoolaha dadka ka shaqeyn lahaa golahaas oo xulaya xulista wakaaladda beeraha xulista wakaaladda badda xulista wakaaladda kheyraadka dhulka xubnihii ka shaqeyn lahaa oo takhasuska ahaa meesha soo mari lahaa waay xulista wakaaladda hawada sare ciddii nooga shaqeyn lahaydna meeshaasaan kasoo xulan doonaa qaybtan intaasaynu joogaysaan waxaan u gudbi doonaa qaybta u dambeysa ee ah
muddo xileedkeeda golaha uu shaqaynayo waxaan muddo lahayn ma jiraan waa isu sheegnay haddeer waxaan geli doonaa noogu xigi doona mowduuca u dambeeya ama tiirka u dambeeyey maxaa la jira golaha uu lahaa golaha ummadda kaasoo ah magaciisa muddadiisa ama muddo xileedkiisa uu shaqaynayo ila socod